halkan u imid inaan indho-indheeyo ama daraasadeeyo ama aan u kuur galo xaaladda walaalahay ciidamada commandoska ee danab ay ku sugan yihiin taasoo muhiimad ii siinaysa inaan ogaado heerka aad ka joogtaan aqoon ahaan awood ahaan iyo tababar ahaan waad ogtihiin waxaan rabnaa in ciidanka Soomaaliyeed uu xoogaysto awood yeesho hadduu Ilaahay raali ka noqdo si ay ula wareegaan amniga guud ee dalka Soomaaliyeed waxaa la rabaa idinkana inaad noqotaan ciidankii ugu xoogga badnaa oo arrintaas ka dhabeeyo insha Allah idinkana waa idinku tashanaynaa idinkana nagu tashta waa mahadsantihiin booqashadeydii aan ku yimid Balidoogle aan ku soo booqday ciidamada aan har iyo habeen dhiigooda xoogooda maskaxdooda aan ku jifno gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed ay ku xisaabtamayso inay cadawga ka ilaaliyaan xaqiiqdii aad ayaan ugu faraxsanahay waxaan rabaa ciidamada danab iyo dhammaan ciidamada qalabka sido ee u horay naftooda xoogooda inaan intii dhimatay aan Ilaahay uga baryo inuu naxariistii janno siiyo ayna ahaayeen rag shuhadaa ah intii dhaawacan oo hadda dhaawacan waxaan Ilaahay uga baryayaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bogsoodaan waan ku faraxsanahay ogaada shacabkiina idinka ayuu ku seexdaa magaciina ayuu ku jiiftaa la'aantiin waxba ma qabsan kara shacabka ka dawlad ahaan annaga waxaan naga go'an inaan mar kasta idin garab istaagno diyaarna idin kula nahay wax alla wixii awoodeena ah boqolkiiba boqol inaan idin garab istaagno aniga ku hadlaya magacayga magaca madaxweynaha Maxamed Abdullaahi Farmaajo iyo dhammaan magaca xukuumadda iyo dhammaan magaca ummadda Soomaaliyeed waa mahadsantihiin waa idin hambalyeynaya insha Allah markii koowaad maahan waa soo noqonaya sidaan u barto waaye insha Allah waxaan rajaynayaa General Odawa ka codsanaya next time frontier inaan idin la tago